أكلتك نعطش أفر بري أفرنا أفر بري أفرنا هاي أفر بري أكلنا هاي وأكلتك ناي لا سؤال صار هذا يوتيوب وحاني سارة تيك توك لينكيgaas soo raacaysiin hadda just know leefka in hamar waa ka baxa youtube-kaan ii soo saara linkiga meesha ii soo raaca iskeyga maslax cunugeena mustaqbalka maxaa u qana bombalaha aawi meel kale ma laga helaa intee laga helaa anush cosmetics noo soo qaba hal xabo waa arkaysaan yaa ma gaaray adaa dheer maslaxa ayaa sheegtay in ay kala tageen Catoosh Yare markii aan la xiriirnay Catoosh Yare iyo Xasan Toob ayaa noo xaqiijiyay in ay kala tageen Catoosh Yare iyo maslaxo laakiin maslaxo ayaa u baahan in uu Catoosh Yare uu furo waxayna suuqa soo gelisay in Catoosh Yare ay kala tageen laakiin arintaasi ayaa ah arin been abuur ah waxaa la sheegay in maslaxa ay u baahan tahay in uu furo Catoosh Yare maslaxa ayaa u baahan in ay guursto niman jooga qurbaha sida aan xogta aan ku maqalnay maslaxo faa'iidada ay ka rabtay iyo danta ay ka lahayd Catoosh Yare waa ay ka dhameystay maslaxo ayaa noqotay haatan qofka ugu caansan baraha bulshada muhiimadda ay ka lahayd Catoosh Yare ayaa ahaa in kaliya ay ku soo xambaxdo una san jacayl ka ahayn Catoosh Yare iyo maslaxo jacaylkooda ayaa ahaa jacayl iska yacni ah uusan ahayn jacayl run halka Catoosh Yare uu ka yahay jacayl la baahay inuu dhaqdo reerkiisa laakiin maslaxo ayaana rabin in ay reerkeeda dhaqato kaliya waxay rabtaa in ay caan ka noqoto baraha bulshada waxaan wada ogsoonahay markii hore maslaxo social media u timaaday in ay ku soo caanbaxdo Catoosh Yare markaasi Catoosh Yare ayaa u soo bandhigtay in uu guursado maslaxo halkaasi uu ku rumow doono waxyaabaha ay rajeynayso ah in ay noqoto qofka ugu caansan ee baraha bulshada heer waxay gaareen in loogu wacdo ay xayeysiiyaan suuqyada ku yaala magaalada Nairobi ayay joogeen dhowr iyo 20 maalmood kadib markii ay isfaham waayeen maslaxo iyo Xasan Toob halkaasi ayay ku soo kala tageen maslaxo ayaana suuqa u soo gelisay Xasan Toob in uu ka duubay muuqaal ayadoo qaawan ah oo barkad ku dabaalanayso oo ayadana dhehayso Xasan Toob iga day Xasan Toob ku qaldan yahay in uu gabar Soomaaliyeed uu muuqaal ayadoo dabaalanayso uu ka soo duubo taasi ayaa qalad weyn ah in uu Xasan Toob baraha bulshada soo dhigay gabar Soomaaliyeed Xasan Toob waxaan leenahay raaligelin ka soo bixi qaladkii ee kaaga dhacay aad ku sameysay gabadhani loo yaqaano ee maslaxo waxaa loo baahnaa in aad si hoose aad u xaliso aad qanciso ana ka raaligeliso aad muuqaalkeeda aad ka saarto baraha bulshada aad soo geliso shilmaad yar aad ka helayso ee gabadhaasi wax weyn ma aha shaqooyinka aad haysto ayaa ka badan waxaa tahay nin diblomaasi ah oo haatan ah safiir ku-xigeenka ama xoghaye ku-xigeenka safaaradda Zambia ee magaalada Lusaka ayaa tahay waxaana tahay diblomaasi ilmahaada iyo caruurtaada waxay yihiin diblomaasi ee iska daay waxyaabahan aad ku jirto ee dhiiqada ah ee baraha bulshada magac waa laga sameeyaa laakiin sumcadaadi ayaa meeshaasi ku baabi'ayso haddii mar aad caan noqoto waxaa jira dad aad caan u ah oo baraha bulshada ku jira oo sumcad iyo sharaf aan ku lahayn Shiin Culey wuxuu ku soo galay baraha bulshada waa wada ogsoonahay laakiin hadda wuxuu noqday nin xaar ah oo u booda dadka saaxiibadiisa ah iyo guriyaasha naayaha la qabo ayuu u galmoonaya Shiin Culey heerkaasi ayuu maraya baraha bulshada waa lagu waashaa kaamirada waa lagu waashaa taasi ayaa ah wax aad run u ah maslaxo waxay sheeganaysaa in uu Catoosh Yare furay laakiin Catoosh Yare ilaa hadda
lagama hayo in uu furay maslaxo. Ninka Catooshare leeyahay ayaa laga rabaa in uu cadeeyo in uu maslaxo uu furay. Markaan la xiriirnay Catooshare iyo ayaan suurta gashay inaan weydiino waxa ay noo sheegeen in maslaxo iyo Catooshare ay kala tagin. Maslaxo ay rabto in uu Catooshare uu furo danta ee ka leheedna way ka gaartay. Waxa wada ogsoonahay maslaxo iyo Catooshare uu ahaan jecelkooda jecel dhab ah, laakiin wixii ku soo kordho halkaani ayaa ka daawan doonta halka uu ku dambeyn doono arintani. fadlan muuqaalka leegaraysiina shargareeyay barnaamijyadeena janaalkana subscribe noo saaro aad ku maasantiin tan iyo kulan dambe waxaad ka tarasidaasi nabadgelyo. dayuus ninkii aan xilihiisa banaanka soo dhigo horta waa dhahay dayuus waa Soomaali islaamka wataas qabo labadooda ma fiicna xasan qofka dadka ceebeena asna kulay ceebihiisa Ilaahay asturmaayo qofkaas Ilaahay u jeedo Soomaa teeda kale kana waa dayuus kale oo xaaskiisa in meelaha lagu xeerto fadeexay raalka mid kale gabadhan waxaan dhihi lahaa iyada naftirkeeda geeskeeda ugu jirta waa inay iyada naftirkeeda waa asturi kartaa waxyaabaha qaar way diidi kartaa wax qasab ma jiraan Soomaa wax qasab ma jiro markii waa soconaysaa way yeelaysaa waa soconaysaa markii uu dhahay ma diideenin ogtaada wax qasab ma jiraan iyada baraali ka tahay sababtoo ah qofka asaas xukumi karo qofka way asturi kartaa waxyaabahan ma rabay dhihi kartaa jooseelada ma hoo marka ayaga dhanba waxaan dhihi karaa way wada qaldan yihiin aniga raayigayga taas waan ka dhibanahay inaa iyadana qaladka geeskeeda waa maasan tahay ninkaasna asna waa badayuu Soomaali soo dhow qofka xagaa masinaya soo dhow waa maasan tahay xabiibo ayaan soo dhow ayaan miya ayman soo dhow ayman soo dhow qofka xagaa maaga ha qabsado yaa ku ugu filan soo dhow male maqla وأنكم مقلنا ولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شو دوا دكتور أبو هرنتي عليه السلام كان يقول سلامي سلام كدب بدان رأيي كدب ثاني أهانتي موقف فيه أنك هلا كلو ورد دنتا تكوا عيشة إن هاد إن لسق قبصنا ولا في عين هاي رالي كأدي رالي كما أهان إن ليش لهون ولا قصي عيني wax walbana waxa cadeey karo maamada ilinteedana cadeyn karto ana ahaan waxaan qabaa inta la joogi lahaa yani caadi irka la sii kala mudgal bay dhabo miya qofkay ugu qoran tahay mudgal ma maqla miya qofkaas aad ku socolal أنت يعني هذا الواحد فاهني واحد سيقول لها إنك ولا لو قبل أسمع فتري كر أو ما ماذا سينفذ يعني ترتيري كرو إنه يعني قرب استاجو أو أفيرين قلادات يدعى وحي دعين ودعين وحي دعين الصوم الله بنايان سي وقبل كرتين سي ولا شو قرب استاجو كرتين ما ماذا سئلت لو تري كرا فرحة سيكوهلي كرنا كلي أنت سنو مهم إن لو دعي أيادنا dhaawacay gaaray inuu Ilaahay ka bogsiyo la garabsiyo intaas kaliya in leeyahay wax kale oo ku darsanayno ma santiin ma sha Allah qof si fiican ma sha Allah waa hadalkaada ma sha Allah waa hadal qabasho leh oo fiican oo aad u muhiimsan oo hanti oo muhiim weyn noo ah